بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد محمد أحمد دكتور بانا kusoo dhawaada youtube janaalkeena. fadlan haddee taa markii ugu horeysay ee aad soo booqato youtube janaalka, fadlan subscribe noo saar, aadaa u mahadsantahay. intaas kadib insha allah maanta waxaa ka hadli doonaa barnaamijkeeni wuxuu ku saabsan yahay faa'iidooyinka aan ka helno biyaha. sidaa wada ognahay, biyaha faa'iidooyinkiisii aad iyo aad ayay u fara badan yihiin. wax halkan aan kusoo koobi karna ma ahan, balse waxaan ka sheegi doonaa insha allah ilaa 10 faa'iido oo aan ka helno biyaha. faa'iidada koowaad ee aan ka helno biyaha waxay tahay, biyaha waxay naga caawiyaan in ay sare u qaadaan habdhiska cunto shiididda ee jirka ama digestive systemka. oo qofka markuu cunto qaato, cuntadaas marka waxaa la rabaa in ay la socoto biyo la-aanteeda qofka waxaa laga yaabaa caloosha in ay ku dhibtooto cuntadaas shiiditaankiisa ama burburitaankiisa. marka qofka waxaa fiican markuu cunto qaadanayo in uu qaato biyo fiican. faa'iidada labaad ee aan ka helno biyaha waxay tahay, jirkeeni maalin walba wuxuu saaraa qashinka, oo wixii qashin ah ayuu jirka dibadda iskaga saaraa. qaabku markaas jirka qashinka ku saarayo waa ilaa 3 hab, waxayna isticmaashaa biyo ayaa la isticmaalaa marka jirka looga saarayo qashinka. tusaale ahaan, kaadida oo kale, kaadida waa biyihii wixii wasakhda ku jiray ayaa dibadda loogu saaraa, qaab kaadi ahaan ayaa usoo baxdaa. tusaalaha labaad ee jirka biyaha uu kaga qayb qaato qaabka qashin saar ahaan waxay tahay dhididka oo kale. oo qofka waxaa aragnaa markuu howlo badan uu hayo oo kale, ama meel kuleel badan uu hayo oo kale, in uu soo saaro dhidid. marka dhididkaasna waxay ka qayb qaataan, waa qashin saarka jirka ayay ka qayb qaataan. faa'iidada saddexaad ee aan ka helno biyaha waxay tahay, waxay ka qayb qaataan ama waxay ilaaliyaan caafimaad qabka kelyaheena. caafimaad qabka kelyaheena ayay ilaaliyaan, sababtoo ah kelyaheena hadday waayaan biyo waxaa dhacayso si fiican in ay kelyaheena ay u shaqayn waayaan, oo dhibaato badan ayaa ku dhacayo kelyaheena. sidoo kale waxaa dhici karto kelyaheena in ay dhagax ay ku dhex jiraan, ama in ay ka dhex samaysmaan dhagax. taas marka waxaa loogu hortagi karaa qofka in uu badsado biyo cabitaankiisa. faa'iidada afaraad oo aan ka helno biyaha waxay tahay, biyaha waxay ilaalisaa maqaarkeena, oo maqaarkeena waxay ka dhigtaa in uu ahaado maqaarka mid fresh ah, oo qoyaan ah, oo mid oo haddana soo ifayo oo jilicsan in ay ahaato ayay ka shaqaysaa biyaha. oo haddii biyo ku filan oo qofka jirkiisa uu heli waayay, maqaarkiisa waxaa laga yaabaa in uu noqdo mid daraay ah ama mid maqaar qaleel ah in uu noqdo ayaa laga yaabaa. taasina waxay keeni kartaa dhibaato. faa'iidada shanaad ee aan ka helno biyaha waxay tahay, waxay sare u qaataa in ay samaysanto candhuufta ama saliva. muhiimadda ugu weyn ee loo leedahayna candhuufta waxay tahay, sida caadiga ahba qofka markuu cuno cunto uu afka geeyo islamarkii ma liqo, oo afka waxaa ka dhexdhacayo mechanical digestion, oo cuntadii oo qofka cunay waa la burburinayaa, goosihii ayaa ka shaqaynaya. markuu burburintaas ay socoto, waxaa la soo daynaya marka saliva ayaa la soo daynayaa, taasoo ka qayb qaadato burburinta cuntada. marka salivadaas ama candhuuftaas oo aad muhiim ugu ah cuntada shiiditaankeeda marka la joogo afka, ayay ka qayb qaadataa in ay samaysanto biyaha. marka aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay marka la joogo burburinta cuntada ka dhexdhacayso afka, sababtoo ah saliva la soo daynayaa. salivadana waxa ugu badan ay ka samaysan tahayna waa biyo. faa'iidada lixaad ee aan ka helno biyaha waxay tahay, waxay ka hortagtaa infekshanka ku dhaca ama caabuqa ku dhaca kaadi mareenka. sidoo kale waxay ka hortagtaa caabuqa ku dhaca ama infekshanka ku dhaca kaadi heesta, taasoo aad iyo aad muhiim ugu ah
xilliga la joogo xilliga kaadida oo qofka uu kaadinayo oo kale kaadidiisa ayaa aad u badanayso marka wadadaas waxay noqonaysaa wada nadiif ah oo qofka sida caadiga ah waxaan naqaanaa qofka markuu biyo badan uu qaato badanaa waxaa badanayso kaadidiisa ayaa badanayso taasi marka waxaa muhiim u ah kiliyihii oo kale kaadi haysta iyo wadada ay marayso kaadida in ay noqoto mid nadiif ah. faa'iidada toddobaad ee aan ka helno biyaha waxay tahay biyuhu waxay ka hortagaan calool fadhiga ama saxaro adeega sidaan hore ugu soo aragnayba markaa barnaamijkeenii kan ka horeeyey oo aan ugu hadlaynay 10 faa'iido ee leedahay timirta sidoo kale waxaa ku soo qaadanay in ay timirta ay ka hortagaysay calool fadhiga marka sidaas la mid ah biyahana marka waxay ka qayb qaataan in qofka calooshiisu ay socoto. faa'iidada 8aad ee aan ka helno biyaha waxay tahay waxay yareysaa madax xanuunka ama sidoo kale waxay naga caawisaa madax xanuunka iyo calaamadaha keena madax xanuunka ayay naga haysaa. biyaha marka aad iyo aad ayay ugu fiican tahay marka in ay qaataan dadka madax xanuunka qaba biyo badan in ay qaataan ayaa aad u haboon. faa'iidada 9aad ee aan ka helno biyaha waxay tahay qofka jirkiisa haday ku dhacdo biyo la'aan waxay keenaysaa marka cilad in ay ku dhacdo maskaxda qaabkii u sameysneed iyo sidoo kale shaqada ay qabanaysay maskaxda ayaa cilad ku dhacayso. sidoo kale in la soo saaro hormooniska iyo neurotransmitterska ayagana sidoo kale way ku lugnaanaysaa biyo la'aan haday ku dhacdo jirka. faa'iidada 10aad oo ah midka ugu dambeyso ee aan ka helno biyaha waxay tahay biyaha waxay ka hortagaan jirkeeni in ay ku dhacdo biyo la'aan oo qofka markuu qaato biyo badan jirka wuu ka maarmayaa biyo wuu ka maarmayaa. intaas ayaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta ee aan ugu hadlaynay 10 faa'iido ee aan ka helno biyaha. aad iyo aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijkeenii aad nala socotaan waxaa rajaynaa in aad wax badan ka faa'iideen. fadlan hadduu ku cajibiyey videoga like saar faa'iidooyinka hadda sheegnay kuwa kale haddaa haysid fadlan commentiga noogu reeb sidoo kale subscribe-ka hanaga iloowin. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay.